Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, maanta waxaan ka hadlaynaa 8 siyaabood oo loo maro dariiqa caafimaad. Daawada ka hor inta aanu videogan gudagelin, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like iyo share noo dhahdo haddii aad nagu cusub tahay. Haddii aad nala joogto, waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga Fadhi Wanaag Channel. Aan u soo noqonno barnaamijka caafimaadka ee maanta aan idiin diyaarinay inaan idiin sharaxno. Waa 8 qodob oo ah wadooyinka aan isleenahay caafimaadkeena ayaa ku jiro ama caafimaadkaaga ayaa ku jiro. Aanu ka bilowno lambarka koowaad. Lambarka koowaad waa salaada Allah. Haddaanu nahay muslimiin, waxaa waajib nagu ah inaan tukanno 5 salaadood ee nala faray. Waxaan ugu dhowaaneynaa Allah ayaan caafimaad ka raadinaynaa, isagaa bixiyo caafimaadka. Marka walaal, ku dadaal salaada Allah marka koowaad si caafimaadkaagu taam u noqdo. Lambarka labaad, samee jimicsi joogto ah sida subaxdii oo kale, jirkaagana furfur mar waliba. Lambarka saddexaad, iska yaree miisaankaaga haddaad buuran tahay. Lambarka afraad, sigaar ha cabin, ha isticmaalin tubaakada, waayo sigaarka waxaa ku jiro 413 maado oo ay ka mid tahay ama ugu badan tahay laamiga ama daamurka. Lambarka shanaad, samee galmo badbaado leh oo xalaal ah, waayo cudurrada ugu daran waxaa laga qaadaa waa galmada xaaraanta ah. Subxaanallah. Lambarka lixaad, qur'aan akhriska badi, waayo qur'aanka waa wadada keli ah ee lagu raadiyo caafimaad, ama waa daawada keli ah oo loo isticmaalo markii uu qof xanuunsado. Lambarka toddobaad, cun cunto caafimaad leh, waayo waxa aad cunto waxay si dhow ula xiriiraan caafimaadkaaga. Lambar 8, ilaali maqaarkaaga oo isticmaal daawaad laga sameeyay dhirta sida xabad sawdada, toonta, liinta iyo waxyaabaha dabiiciga ah. Daawade 8 walxood aad ku dadaasho, waxaan filayaa inaad haleesho caafimaadka insha Allahu tacaala. Daawade hanaga hilmaami subscribe-tii, like-ta